waa muuqaal ay duubtay Universal bishii June ee sanadkan. waa xeebta Kawaanbari ee Muqdisho oo dibadda u soo saaraysa meydadka wiilal dhalinyaro ah iyo qoysas gaaf wareegaya xeebta isla markaana sugaya nolol iyo geeri mid in ay ku helaan caruurtooda oo lagu la'yahay badda. waxaa korortay halista iyo qataraha ay dalxiisayaashu kala kulmayaan xilligan xeebta Liido. kaliya 3 bil ee u dambeysay waxa ay baddu qaaday ku dhawaad 30 dalxiisayaal ah oo dhalinyaro u badan, sida ay noo xaqiijiyeen maamulka degmada Cabdicasiis. boqolaal dadweyne ah ayaa halkan u soo dabaal doonta maalin walba, mana muuqato tallaabo ay dawladda Soomaaliya ku dhisayso doomaha gargaarka degdega ah iyo koox u tababaran badbaadinta dadka halkan imaanaya si loo yareeyo qataraha. hayeeshee waxaa jira koox dhalinyaro u badan oo iskood isku xilqaamay. halista badda oo korortay darteed waxaa hadda Muqdisho ka abuurantay koox ka kooban 10 xubnood oo dalxiisayaasha dabaalanaya u fidinaya gargaar degdeg ah waa haddii ay soo wajahdo qatar, taasi oo ay ka gaabisay dawladda Soomaaliya. insha Allah waxa waaye inaad diyaar garowdaan mar walba aad u diyaar garowdaan dadka badda ku miiqanayo. Raagi Ceegaag ayaana ah hormuudka kooxda badbaadiyaasha ee xeebtan wareega. maanta hal qofood ayaan badbaado u suubinay, waa dabaal siinay, waa badbaadinay. insha Allah xeebtaana keenay saasaan suubinay. waxaan ka rajo qabnaa mar walba inaan annaga qofkii miiqanaya badda ku aragno inaan badbaadino. waxaan u suubinaynaa dhallinyaradan Soomaaliyeed mar walba waxaa naga badbadatay la dhacayo baddaa qaaday, baddaa laqday, kuwaa badda lagu weysan yahay, taasaa naga badbadatay. marka waxaan u suubinaynaa isxilqaan oo annaga nafsadeena aan iska xilqaannay. insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan dhallinyarada Soomaaliyeed badbaadino inta aan joogno. waa madaxa dalxiiska ee degmada Cabdicasiis Cali Yuusuf oo dadka gudaha u sii galaya badda soo celinaya qatarta xilligan ka jirta badda darteed. mar walibana qatartu aaday degme ahaan aaday noo saameysaa maadaama dad dhalinyaro Soomaaliyeed ee badda kula aanayaan oo intay isdhahaan aad u dabaal taqaanaa. marka waxaan dhihi lahaa shacabka Soomaaliyeed u soo damaash tago una soo dalxiiso degmada Cabdicasiis una soo aado dabaasha. waxaan dhihi lahaa baaqan u diri lahay inaysan isdhahin dabaasha aad u taqaanaa oo qatara tahay. marka qatarta leh hadda badda dhashay xilli waxa waaye xagay ama bad xiran lagu tilmaamo aysan ahaynin. marka waxaan kula tali lahay dadku inaysan aad ugu fogaanin xeebta, inaysan dabaasha aad u taqaanaa aad ugu foojignaadaan. Maxamed Ibrahim Bulbul, Universal TV, Muqdisho.